dugsiga hoose dhexe ee Gateway oo ka mid ah dugsiyada bixiya aqoonta tayadeedu sareyso ayaa tartan aqooneed u soo gabagabeeyay ardayda wax ka barata dugsigaasi. Tartan aqooneedkan oo socday in muddo ah ayaa ujeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada aqooneed ee ardayda isla markaana loo dhiirigelin lahaa ay laba jibaaraan dadaalkoodii aqooneed. intii uu tartankani socday waxaa ardayda la weydiiyay qaar ka mid ah waxyaabihii ay soo barteen. saaka waxaa tartan fiinaal ah oo gabagaba ah waxa weeyaan tartankii aqooneedka ahaa ee iskuulka muddada dheer soo socday uu inoogu soo gabagaboobay tartankaas oo soo bilaabmay maalin isni talaada 8 bishii 3 2016 inoona dhammaaday maanta oo ah waxa loo yaqaano 26 bishii 3 2016 labada fasal ee saaka tartamay waxay ahaayeen 6A iyo 5B waa labadii fasal ee finaalka ugu dambeeyay. haddii aan bilaabo fasalka 6A aan ku horeeyo su'aashii ugu horeysay la weydiiyay waxay su'aal ayaariya waxay keeneen oo ku guuldareysay su'aal Soomaaliya la weydiiyay way saxdeen, su'aal Ingiriis la weydiiyay way saxdeen, su'aal Ingiriis la weydiiyay way saxdeen, su'aal tarbiyada la weydiiyay way saxdeen, su'aal social la weydiiyay way saxdeen, su'aal social la weydiiyay way ku guuldareysteen, su'aal tarbiyada la weydiiyay way ku guuldareysteen, su'aal ayaariya la weydiiyay way saxdeen, su'aal Soomaaliya la weydiiyay way saxdeen, su'aal saynis la weydiiyay way saxdeen, su'aal carabiya la weydiiyay way saxdeen, su'aal xisaab la weydiiyay way saxdeen, su'aal carabiya la weydiiyay way saxdeen, su'aal saynis la weydiiyay way saxdeen, su'aal maths la weydiiyay xisaab way saxdeen. guud ahaan waxay keeneen dhibco gaadhaya 23 iyo badh bay keeneen fasalka 6A. fasalka 6A waxay keeneen 23.5. fasalka la tartamayay ee dhigooda waa 5B waxay ku bilaabeen su'aal tarbiyada way saxdeen, waxay ku bilaabeen su'aal social ku xigta way saxdeen, su'aal ayaariya way saxdeen, su'aal Ingiriis way saxdeen, su'aal saynis way saxdeen, su'aal xisaab way saxdeen, su'aal saynis way saxeen, su'aal tarbiyada way saxeen, su'aal Ingiriis way haafsaxeen, su'aal social way saxeen, su'aal Soomaaliya way haafsaxeen, su'aal xisaab way saxeen, su'aal carabiya way saxeen, su'aal Soomaaliya way saxeen, su'aal carabiya way saxeen, su'aal ayaariya way saxeen. guud ahaan waxay keeneen 30 dhibcood point 5. 30 dhibcood point 5. guushuna waxay ku raacday halka fasalka 5B. tartankaas muddo dheer buu soo socday aakhir waxa iskugu yimina waa labadan galaas waxa weeye natiijada ay ku kala badiyeen waa 30 dhibcood 25 oo galaaska 5B ay guusha ku qaadeen iyo galaaska 6A oo 23.5 iyaguna keenay guushuna waxay halka ku raacday galaaska 5B. waan u hambalyeynaa guntii gabagabadii tartanka waa tartan dheer buu ahaa anigu kelmadaha la isticmaalay saas uma la isticmaalayaan oo ah kuwa guuleystay ma oran karo waa laga kuwa guul daraystay kuwa badiyay iyo kuwa laga badiyay kuwa si aad u dadaalay iyo kuwa dadaalay iyo kuwa si aad u dadaalay. waxay maanta tahay maalin aniga farxad aad u weynii ilaa maadaama ay tahay maalin xasuuso badan runtii soo xasuusay oo aad muujisaan wanaag iyo sharaf iyo waxqabad iyo waxtar oo mid waliba markuu waxbarashada dhammaysto sidii uu hadhow wax ugu qaban lahaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo awlaadiisa iyo waalidkiisba insha Allah waxaan idinka sugaynaa waxtar taxadiraya waligood waxaan ku tagaysan tirigaska twayne taageer Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Lascaanood.